واجي بريابه وايله عبد الرحمن وأذان كلها هالدينا ومدحوين أذان كلها هالدينا غيرك هالكا لجو بابيي وادوقتها يو جورجا قد حديثي جورجا قد حديثي حال سي وجورجا قردس ومشى تشيني سوى ناتشي وجورجي واد كبابي سيء وحقبض السماء وحقبض بعد دولتنا الشاقتها وحقبض كمان قاعد سوينا مدحوينا ندورنا إنه محاي تعروت يدي ما تدا يدي وعرف كليو وحسوقه ولبتر يا لببلوتر يسدحتر يا هو يدود ما تداسي إنه حبسك كوكورو غوريغودينا بابيو عرف كليو مدحوينا كيالي مينو waxa weeyaan tii laga dhimanayo weeyaan tii rag isku dilay weeyaan waxa weeyaan buqcada hargeysa ilaahay baan wada dhigay 25 sanadood baynu jaarahayn jagadaad ku jirta in adeertay ba ka iibisay ramle xuseen oo cali ba ka iibisay annaguna jaar baanu laahayn oo walaalkay halkaas u deganaa hooyo aabahood baa ku dhintay oo hooyadood baa ku dhimatay oo way ku dhaleen oo way ku dhasheen waxaanu si sharaf iyo maartay karaamo leh aanu dawladda maartay mar labaad iyo mar saddexaad baan u sheegaynaa arrintu halkii marisay markaan warka qaadanay may ahayn meel dhagar lagu galo fulina la gaarsiiyo may ahayn meel tala weyday bay ahaydee meel loo taagi waayay may ahayn ama waxaan imakana aanu leenahay hore dunyada wax waliba way ka dhacaan say doontaba hor dhaco qaladka dawladdu waa ka yimaada shicibkana waa ka yimaada laakiin tii wixii aan shaydaanku jaanis ka helin ee aanay dhibaato ka dhicin dhagarin aanay ka dhicin ayaa wanaagsan anagu hadal badan meena waxaan ku leenahay madaxweyne bixii ay shacabka meesha degan xaq ugu lahaayeen oo waliba aan bariyo ahayn ayaanu kaaga fadhinaa dadkii la deegaanka haye meesha la deganaa sharciga marisaan anaguna kaaga fadhinaa madaxweyne wadan islaamaynu joognaa islaamnimaynu sheeganaynaa sharciga loo soo maray in ilmo yar oo 2 sano jira uu ku jiro saldhig adduunka halkay ka dhacday waxa weeyaan hooyadiiba caruurta yar hooyadood baa xidhan 4 ciyaal oo ka ugu yar 2 sano jira xidhan awlaada sida aad u gashay sida awlaad u gashay ilaahay baa kala xisaabtami ya allah ilaahay baan ku dhiibnay ilaahay baa kala xisaabtami wixii ka dambeeyana waad arki rag iyo rabbi baanu leenahay annagu ma nihin maanta waxa weeyaan reer la taaga ma nihin waxaan nahayna waa la garanayaa halkaanu ka soo jeedna iyo taariikhdayadana waa la garanayaa madaxweyne haddaad 24 saacadood gudahood aad arrin oo jawaab ku keeni weydo oo arrinka aad ka soo jawaabi weydo wallahi ta dhacday in la yaabi oo waxaan ku warigeed allaheedba ayna qaranka ka hadhaynin. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa oo ku dirtana waa free arrinta halkan aan isku nimid dadka rag iyo dumar bale halka taagan waqtiga ay tahayna aanu ku soo gaadhnay buuq iyo hawl iyo dhibaato oo aanu ka hadlayno guri halka madaxweynaha hortiisa lagu baabiyey waa waxaynaan hore u arag hore guri jaar la madaxweyne in reerkiina la baabiyo caruurtii oo 5 oo kii 2 jirka ku jiro meel lagu xireeyo waa dhacdo waagii bariyaba waayale madaxweyne cid kale maaha boolis maaha wasiir maaha meel kale maaha waa madaxweynahaanu la hadlaynaa gurigiisay jaar la ahaayeen waxa ka dhacayna wuu og yahay halkii la yidhi saanu warka ku maqalay waa loo calaamadiyeyna lama gaadhsiin orama meeshii wixii lagu daadiyey la jajabiyey lagu halkii ku fadhanaysaa dadkii lahaana wuu xidhxidhan yihiin madaxweyne arrintaa waad ka warhaysaa adaanu kula hadlaynaa cabdilaahi haddaad tahay adaanu kula hadlaynaa carruurtaa iyo reerkaa la baabiyey ee gacantaadii iyo gurigaaga dhexdiisii kaga yimid waxaanu ku leenahay madaxweyne malaha dadku markuu meel fuulo wuu iloobaa
dadkaa aad baabiisay waa dadkii kuu soo halgamay waa dadkii habeen iyo maaliba kuu taagnaa waxaanu lahayn mar hadday madaxweynaha la jaar yihiin waxqabad buu u samayn maanaan lahayn waxqabad daayo waa la baabiinba maanaan fadhiyin waagii baryaabo waaye leh cabdiraxmaan oo adaanu kula hadlaynaa oo madaxweyne adaanu kula hadlaynaa reerka halkaa lagu baabiiyey waad og tahay oo waa gurigaaga dhexdiisii xaal si oo gurigoogu u dhis oo meeshaad dejinaysa wanaaji oo gurigii waad ka baabiisaye waxqabad u samee waxqabad baa dawladdana sheegataa waxqabadkii baanu kaa sugaynaa halkani waxaanu maanta isugu nimi dhibaatada ka timid guriga madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan waxa weeyaan guri maatii ku jirtay oo guriga madaxweynaha jaar la ahaa dhibaatada ka dhacday oo ka mid ah inaa habeen madow cagaf la geliyo habeen madow cagaf la geliyo carruurtii iyo haweenkii inta la qaado in xabsiga lagu guray gurigoodiina la baabi'iyey arrintaasi madaxweynaha dee wax uu wanaajiyo amba uu dhiso ayaa laga doonayaaye wax uu baabi'iyo laga dooni maayo wax la qaadan karana ma aha waxaanu qaadan karna ma aha madaxweynahaanu doorannay inuu muxuu ahaytay carruurtayadii iyo maatidayadii uu cagaf geliyo uu xasuuqo oo uu 2 jir iyo 2 bilood jir iyo 3 jir iyo hooyadood maatidaasi inuu xabsiga ku guro gurigoodiina baabi'iyo cagaf geliyo madaxweynaha ka yeeli mayno waxaanu aqbalayna ma aha madaxweynaha waxaanu doonaynaa arrintaasi inuu sida ugu dhaqsaha badan inuu uga soo jawaabo jawaab cad baanu ka sugaynaa haddii uu ka soo jawaabi waayo madaxweynuhu arrintaasi waxa ka dhaca ha dhowto yaan la isweydiin hadhow waxa ka dhaca maantida iyaduna xidhnaan mayso guriga iyaguna baabi'i maayo taa aqbali mayno waxaan maanta halkan iskugu nimi maaragtay waa arrin dhacday oo ka dhacday dawladda iyo maaragtay dadkeeda shacibka dhexdooda ka dhacday reerkii halkaa deganaa guriga madaxweynaha agtiisa ee maaragtay halkaa biibsiga xarunta biibsiga ku dhoweyd waxay maanta bulshadan faraha badan ee ka cabanaysaa iyo kuwo fara badan oo kasii badaniba waa reerkii jaarka la ahaa guriga madaxweynuhu degan yahay maaragtay ee halkaasi fulinta lagu sameeyey sidaa daraaddeed arrintaas waxaanu si sharaf iyo maaragtay karaamo leh aanu dawladda maaragtay mar labaad iyo mar saddexaad baanu u sheegaynaa arrintu halkii maraysay markaan warka qaadanay may ahayn meel dhagar lagu galo fulinna la gaadhsiiyo may ahayn meel tala weyday bay ahaydee meel loo taagi waaye may ahayn ama waxaanu imakana aanu leenahay hore dunyada wax waliba way ka dhacaan siday doontaba ha dhaco qaladka dawladduna waa ka yimaadaa shicibkana waa ka yimaadaa laakiin tii wixii aan shaydaanku jaanis ka helin ee aanay dhibaata ka dhicin dhagarin aanay ka dhicin ayaa wanaagsan annagoo dawladdayeedii tahay annaanu culimadeedii nahay dadkana maaragtay aanu culimadoodii nahay wax annagu aanu dawladda kula talinanaa oonu weliba si bilaadinimo iyo islaamnimo lana aanu kula talinanaa arrintaasi intii dawladdana sharaf xumaan iyo dhibaatay u soo jiidi lahayd dadka shicibkaana meel aanay gaadhsiisnayn ay gaadhi lahaayeen inay dawladdu ayadoo xukuumaddiiyahe oo maaragtay sharaftiina ummaddana huwan maamulkiina gacanta ku haysa wax la xagxagtay wax bixiyaan ayadaa ugu roon inay arrintaa dejiso oo ay arrintaas sida ugu dhaqsaha badan ay u dhammaystirto oo shicibka mushaawiro iyo walaalayn iyo soo dhoweyn ayaa lagu wadaa haddii laakiin shicibka la xiro oodo oo shicibka maalinba meel la qandhiidhiyo shicibku way qarxaano way butaacaan dawladdu waxaan leenahay shicibka butaaca ka ilaaliya arrintaa iyadaana sida ugu dhaqsaha badan leh dhameeya milyar baan ku darayaa beerdhowtana halka gaashaamiya halkaan joognin ayaanu aragnay geel fara badan oo 2 nin oo Oromo la joogaan
labadan waxa ku dadaaleen geelu inaanu ka lumin dabeetana geela hareey ka taagan yahay hashi xaggan yar bay madaxay ku soo dhufanaya kilida ku soo dhufanaya ganacay ku soo dhufanaya marka nimankaasi geela inay ilaaliyaan xasiliyaan bay doonayeen deena dhibaateeyeen may dooneen arrinteeduna way ka maqal geela sida loo xanaaneeyana wuu ka maqnaa waxaan xukuumad ahaan idin leenahay shicibka xiro-ood kuma wanaagsana afarta kuna bud lagala galo waxayse ku wanaagsan yihiin mushaawiro iyo maartay tala bixin ayay ku fiican yihiin arrintana meel fogba ma taagni kol haddii halkiina looga sheekeeyey ay maraso waxaanu xukuumadda si sharaf la iyo islaamnimo iyo culimadeeda leh aan ugu sheegaynaa inay arrintaasi sida ugu dhaqsaha badan leh meel fiican bay marasay imaa kale loo dhammaystira insha allah billahi kariim assalaamu calaykum waxaan ahay siraad maxamed duule agoonta la baabiyana walaalkay cabdilaahi baa dhalay walaalkay taariikhda waddanka ku lahaa wuxuu ahaa ninkii miinada ka saaray hargeysa maxaan ku dhaha balay cabane balay gubadle burco hargeysa ninkii miinada ka saaray buu taariikhda waddanka ku lahaa maanta waxa la baabiyana waa agoontiisa waxa weeyaan cirooy dee nin waxaad tahay madaxweynaan ahay baa tiri ma agoontaad madaxweyne u noqotaa ma agoontaad u baadhataa waxaan ku idhi 4 habeennimo ayaa cagaf carruurtii lagu soo kiciyey gurigay hurdeen ayaa afka lagu qaaday carruurtii cagafta afkeeda baa laga reebay mid walba garan fiinaa isagoo xidhanta saa loo qaaday baa bannaanka la dhigay bannaanka markii la dhigana gaadhiinta lagu guray baa jeelka la geeyey 5 jir 4 jir 3 jir 2 jir iyo hooyadooda urlay waxa weeyaan tii laga dhimanayo weeyaan tii rag isku dilaya weeyaan waxa weeyaan buqcadda hargeysa ilaahay baa wada dhigay 25 sanadood baynu jaarahayn jagadaad ku jirto in adeertay baa ka iibisay ramle xuseen oo cali baa ka iibisay annaguna jaar baanu laahayn oo walaalkay halkaas u deganaa hooyada aabahood baa ku dhintay oo hooyadood baa ku dhimatay oo way ku dhaleen oo way ku dhasheen ragad maanta isku xayday raggii Soomaaliland xoreeyay baa dhalay magac baad laakiin ku disho magac subar walbaad ku dishay waxa weeyaan agoonta madaxa loo salaxa waa la soo dhaweeyaa islaamnimada waxay ku jirtaa in agoonta la soo dhaweeyo in madaxa loo salaxo adiguna intaad baabi'isay oo cagaf ku qaaday aqalkoodii gurigaaga ku jiriyaana mooy aqalkii sidoo u dhamaa uu dhar lahaa uu alaab lahaa uu TV lahaa uu gogol lahaa ilaa shay ha kala bixina wala yiraahdo carruurtii qaawan baa jalka dul fadhiya dhex fadhida Soomaad garan waxaanu nahay qabiil Sacad Muusaan qabiil reer Liibaan waxaanu ka helaaba xabadda aanu ka helaaba bogcadan ilaahay mana wada dhigay ka dhashay ku dhalay tagoogaga ka ku jira waa waxaan hadhiyo taariikhan hadhiyo weeyaan ismara garawaayno 25 sanadood baan jaarahay awlaada sida aad u gashay ilaahay baa kala xisaabtamay yaa allah ilaahay baan ku dhiibnay ilaahay baa kala xisaabtamay wixii ka dambeeyana waad arki rag iyo rabbi baanu leenahay subeera walbaanu reer kala yiraahdo Sacad Muusaanu nahay Yaasif baanu nahay reer Liibaan baanu nahay nagama faa'iido qaladkaad nagu samaysay ee awlaadeeda ku samaysay ee aqalkayga ku samaysay ee tagadeeda ku samaysay 35 sano tagada deganay oo hooyad lagu guursaday oo carruurtii ku dhashay oo ku dhasheen oo ku dhaleen agoontii xabsiga ku jirta oo imika 4 jir 5 jir 4 jir 3 jir gabadhii uur kale xabsiga kuugu jirta ma dhiig bay gashay maandar bay ka gashay qabiil nacayb weeyaan wasaanu arkayna anaga waa qabiil nacayb subeer awal nacayb weeyaan xasan Muuse bixi baad naga akhrisatay Soomaad garan laakiin waxaad ka heshaad heli doontaa halkan waxaan iskugu imanay madal farxadeed maaha waxaan noo taala dhacdaan Soomaaliland wali hore uga dhicino maanta anaga u gubnuga madaxweynihii lixaad baa qaranka haysta inta madaxweyne soo martay madaxweyne kasta dad buu rari jiray laakiin balayn uu dajiyay meel uu habeeyay buu geen jiray waana dan guud hadii loo baahdo dadka si sharciya looga raraa waajiba taanaga nagu dhacday laakiin maaha dhacdo ugu maaha dhacdo hore u dhacday waa tuu uguba labada habeenimo waxa la miray carruur yar oo maatiya oo 2 jir 3 jir 4 jir iyo hooyadood waxa meesha laga rarayna iyaga daaya aabahood baa ku dhashay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaan leeyahay meeshan iyagoo degan baa timiday adoo musharaxaad deganeed adoo golaha baarlamaanka ayaa deganeed adigoo qaranka saameynba ku lahayn oo shacaba ayaa deganeed intaaba ixtiraam iyo wanaag iyo walaalnimo lagu wada deganaa oo daab ka dhow baa la yiraahdaa haddaad ku xeerin weyday isaaqnimo haddaad ku xeerin weyday Soomaalilandnimo jaarnimo miyaad ku xeerin kari weyday madaxweyne
caruurta hooyadood halkii lagu aasay waad ogeyd aabahood halkii lagu aasay waad ogeyd deegaan baad laahayd oo maanta dad loo kala warramayo ma tihidin laakiin saanu kaa filaynay si aan anagu qaadanayno maaha madaxweyne waxaananu kuu sheegaynaa caban mayna waanu aarsanaynaa 24 saacadood gudahood haddii warbixin kooban laga heli waayo maatidayadii gurigeygii halkuu ku dambeeyey saacadaan halkaa taagannahay waxaan u taaganay maba garanaynaba dee carruurtii meelaanu kaga warranno waa la xidhay baana lagu yidhi waxaa laba jir qaran madaxweynuhu xidhan weli waa ugub muuse biixi iyo siilaayo riyaale cid aan shacab soo xidhin muu lahayn laakiin wax laba jir xidha adiga ka hor madaxweyne maanaan arag markaanu isnidhi booqdana oo carruurtii dee bal ka soo war doona halkay xaaladooda ku sugantahay madaxweynaha dhibano baa la yidhi ma laba jir madaxweyne dhibano baynu aragnay waa wax taariikhda ugub ku ah waa maalin madoobi Soomaaliland u tii laguna kala hari maayo tan madaxweyne haddaad adigu maanta shar adeegsanayso waa maalinba ninba qaranka haya adoo shicibad soo noqon doontaa halkan anagu hadal badan mayna waxaan ku leenahay madaxweyne wixii ay shacabka meesha degan xaq ugu lahaayeen oo waliba aan bariyo ahayn ayaanu kaaga fadhinaa dadkii la deegaanka hayay meesha la deganaa sharcigaad marisaan anaguna kaaga fadhinaa madaxweyne bariyo ma hatani anagu reer loo baabiyo maanaan aragde dooxa waxa lagu daray dooxa boqol jir ayaa lagu daray alaabteedii 35 sanadood tacabkii la gelinayay guriga waxa bililaqaysanayay oramada iyo kuwa biraha iibsaday ee iskaraablayaasha taana adiga ogolaaday madaxweyne wax hore u dhacayna ma ahe la isaga hadhi maayo baan ku leeyahay madaxweyne dhibaatada ugu weyn ma aragtay meesha taala waxa weeyaan awlaad yar yar oo ciyaara oo ilmaha yar ee 2 sano uu ka mid yahay waa reer ka dhanee loo xoog sheegtay cidda u xoog sheegatayna waxa weeyaan ciddii madaxweynihii dhannaayay qaranka ee reerkaba ka mas'uulka ahaaba madaxweynuhu maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dee dalkoo dhan buu mas'uul ka yahay agoontana waa waxyaabaha lagala xisaabtamayo jaarkuna weliba xaq qaar u sii leeyahay waxa weeyaan meesha dhibaatada ka dhacday ee intaa leeg ee 3 habeenimo maxaan ku dhadaayay la bilaabay waxa weeyaan reerka la deriska ah ee laga soo wada hadlay waxa weeyaan halkii ma aragtay carruurta yar yari isagoon madaxweyne ahayn oo maxaan ku dhadaayay aan baarlamaanka ku jirin oo shicib oo xisbiga haysta ayay la jaarhaayeen maanta abaalgud waxay u lahaayeen in meesha guri iyo hanti looga dhiso abaalgud uma ilahayn maanta in hantidoodii inta la baabiiyo dooxa lagu daro in carruurta yar yar halkee lagu arkay wadan islaamaynu joognaa islaamnimaynu sheeganaynaa sharciga loo soo maray in ilmo yar oo 2 sano jira uu ku jiro saldhig adduunka halkay ka dhacday waxa weeyaan hooyadiiba carruurta yar hooyadood baa xidhan 4 ciyaalo ka ugu yar 2 sano jira xidhan wallahi baan adduunka meel ay ka dhacday gaala iyo muslim wadan lagu arkay inayna jirin Soomaaliland iminkay ka tahay waxaas waxa weeyaan way sirnacayb weeyaan haddii dad loo jeedo oo dad la ataagayo dee waxa weeyaan way cadaan annagu ma nihin maanta waxa weeyaan reer la ataaga ma nihin waxaan nahayna waa la garanayaa halkaanu ka soo jeedna iyo taariikhdayadana waa la garanayaa madaxweyne haddaad 24 saacadood gudahood aad arrin oo jawaab ku keeni weydo ood arrinkaa aad ka soo jawaabi weydo wallahi ta dhacda in la yaabi oo waxaan ku warigeed allaheedba ayna qaranka ka hadhaynin maati yar yar oo la xasuuqay oo hantidoodii lagu daray dooxa wallahi inamadaa yar yar ee carruurtaa inanka yar ee dhalay madaxweynaha hadh iyo habeen wuu shaqaynayay waxaan kugu idhi xooggiisii iyo maalkiisii iyo xoolihiisii jaarnimo ay tahay iyo xisbiguu taageersanaa uu ka tirsanaa hadday tahayba wuu shaqaynayay hadh iyo habeen kamuu fadhiisanin madaxweynuhuna wuxuu garan waayey iska daa inuu waxa weeyaan uu wax ku tare hantidoodiiba 4 habeenimo uu maxaan ku dhaday raray uu cagaf geliyay halkee lagu arkay xoog maxaan ku dhaday carruur yar loo isticmaalo halkee lagu arkay waa jaarkiisii isaguna dhulka sababtu waxaas u sameeyay dee guriga madaxweynuhu ballaadhinaya ayuu dhulka ku darsanaya miyuu inta u yimaado miyuu garan waayey madaxweynaha iyo ciddu soo dirsanayay maxaan ku dhahdaayay madaxweyne inaad meesha wax uga dhisto intaa miyuu garan waayey sababtu u sameeyey maxaan ku dhahdaayay madaxweynuhu uu dadku soo dirsanayay miyuu inamada yaryar u yimaado iyaguba hadh iyo habeen bay xafiiska ugu tegayeen oo u shaqaynayeen ma wuxuu garan waayey inamada yaryar dhulkaasi wixii ay qiimo u noqonaya sii dabeetana adeer sidaa ka guuradhe aabbahood iyo hooyadoodba halkaasay ku dhinteen waa agoon waa rajo isagaa dad ugu xigoo jaarkiisii ahaa marka cid kale laga tagaba isagaa madaxweynuhu dad ugu xigay oo halkaa ay u fadhiyeen oo waxa weeyaan habeenna ilaah baan ku dhaartay iska daa maanta inuu cagaf geliye kii hantida u dhisi lahaa buu ahaa
ee guri wuxuu qaban lahaa buu ahaa ee carruurta yarar shaqaalaysiin lahaa bay ahayd inamadaa yarar iyagoon meel ka shaqeeya ayna jirin oo ilaahay unu og yahay xaalkooda ayuu cagaf isna ugu daray waa hantidoodii dooxa ku daray madaxweyne haddaad arrinkaa aad ka soo jawaabi weydo 24 saacadood dee reer bay ka dhasheen oo reer baanu ka tirsannahay haddii 24 saacadood hawshaa kaga soo jawaabi weydo wallaahi taanu samaynay in weligeed la yaabi